qodobada aan idin hayo oo warkeena aad ku maqlaysaan waxa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyayaasha wadamada reer galbeedka qaar ka mid ah madaxda Carbeed iyo guud ahaan madaxda Islaamka oo haatan ku wajahan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar halkaasi oo ka dhacay shirweynaha looga hadli doono dagaalka marinka Gaza ee Falastiin iyo sidoo kale nabadda iyo xasiloonida guud ee gobolka Bariga Dhexe. waxaa sidoo kale aad maqlaysaan kumanaan qof oo maanta isugu soo baxay isbitaalka An-Nasr ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ee Falastiin si ay markaasi u soo dhaweeyaan Falastiiniinta maanta xornimada helay isla markaana laga soo saaray xabsiyada gumeystaha Israa'iil. iyo sidoo kale waxaad maqlaysaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov oo maanta markaasi si weyn u dhaliilay hindisaha Trump isla markaana sheegay inuu yahay mid loogu eexanayo Israa'iil balse aanan looga hadlin marnaba sidii shacabka Falastiiniinta ah ay ku yeelan lahaayeen wadan ay iyagu leeyihiin. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idin hayaa oo warkeena aad ku maqlaysaan daqiiqadaha nagu soo aadan. haddii aad nagu cusub tahay ha ilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiiso badan aad dalkan uga bogatid. waxaan ku horeynayaa madaxda wadamada qaar ee caalamka oo haatan markaasi ku wajahan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar halkaasi oo loogu qabanayo shirweynaha looga hadlayo xasuuqa marinka Gaza ee Falastiin iyo sidii nabad iyo xasilooni looga heli lahaa gobolka Bariga Dhexe. madaxda haatan ku sugan ee goobtaasi waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Mohamed Shia al-Sudani kuwaasi oo gaaray magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar. waxaa sidoo kale halkaasi ku sugan madaxweynaha dowladda Falastiin ee Pieda Mahmoud Abbas iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi UK Keir Starmer kuwaasi oo iyagana gaaray magaalada Sharm el-Sheikh. madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa isagana diyaarad ka raacay garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv waxaana maanta uu markaasi gaaray magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar waa kadib markii khudbad uu ka soo jeediyay aqalka baarlamaanka ee gumeystaha Israa'iil. Trump ayaa markaasi gaaray magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hay'ashee diiday in uu ka qayb galo shirweynahan inkastoo casuumaad rasmi ah uu markaasi ka helay madaxweynaha dalkaasi Masar Abdel Fattah al-Sisi. Netanyahu ayaa isagu markaasi sheegay in haatan xilligii fasaxa ay markaasi ku jiraan Yuhuudda ama holidayda ay u yaqaanaan Sukhoodka in ay ku jiraan gumeystaha Israa'iil isla markaana uusan awoodin in shirweynahan uu markaasi ka qayb galo. hayeeshee wararka hoose ee la helayo waxa ay tilmaamayaan in qaar badan oo ka mid ah madaxda Carbeed iyo madaxda dunida Islaamka oo ka qayb galaya shirkan ka dhacay magaalada Sharm el-Sheikh in ay iyagu go'aan ku gaareen in haddii ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu goobtaasi yimaado oo shirkan uu kasoo qayb galo in ay isaga laaban doonaan wadamadooda. madaxdan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Mohamed Shia al-Sudani kaasi oo wacad ku maray in haddii Netanyahu lagu casuumo shirweynahan oo uu hor yimaado madaxda Carbeed iyo madaxda Islaamka kadib xasuuqii burburkii dilalkii dulmigii iyo dambiyadii dagaal ee uu ka geystay marinka Gaza ee Falastiin inuu dib ugu laaban doono caasimadda Baghdad. Netanyahu dhanka kale waxaa la sheegay maadaama madaxweynaha dowladda Falastiin Mahmoud Abbas uu ka qayb galay kulankan oo uu ku sugan yahay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar in uu go'aansaday in uu markaasi ka baaqdo maadaama uu ka cabsaday in wasiirada xagjirka ee ka tirsan dowladdiisa sida Itamar bin Gvir iyo Bezalel Smotrich in ay ka caroodaan haddii uu markaasi salaamo oo uu gacan qaado madaxweynahan dowladda Pieda ee Mahmoud Abbas oo ku sugan magaalada Sharm el-Sheikh. Netanyahu sidoo kale waxaa la sheegay in cabsi xoog leh uu markaasi ka muujiyay waxyaabo lama filaan ah oo markaasi ka dhici kara gudaha magaalada Sharm el-Sheikh inta uu kulankaasi socdo. wararka qaarkoodna waxay tibaaxayaan in xitaa uu ka cabsaday in ilaalada madaxda dunida Islaamka
ee ku sugan magaalada Sharm el-Sheikh in ay toogasho ku dilaan oo ay ku beegsadaan magaaladan, taasina ay ku qasabtay in kulankaasi uu ka nagaado. Ha yeeshee markii hore waxaa la qorsheeyey in Netanyahu uu la yimaado madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Donald Trump, islamarkaana uu ka qayb galay shirweynahaasi. Xamaas dhanka kale waxa ay iyagu markaasi diideen oo si rasmi ah ay u shaaciyeen in aysan ka qayb geli doonin shirweynahan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar markaasi ka dhacayo. Xamaas waxay sheegeen in iyagu aysan xitaa goobjoog ka ahaan doonin heshiiska lagu kala saxiixanayo goobta lagu kala saxiixanayo heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza ee Falastiin. Waxaana hogaamiye sare oo ka tirsan Xamaas oo lagu magacaabay Cizaad al-Rishqi oo markaasi sheegay in Xamaas shaqadoodu ay intaasi ku eg tahay, islamarkaana ay heshiis rasmi ah la gaareen dhexdhexaadiyaashii ka dambeeyay heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza ee Falastiin, xilligana aysan diyaar u ahayn in miiska wada hadalka ay markaasi soo fariistaan oo shirweynahan ay ka qayb galaan. Wararka qaarkood waxay tibaaxayaan in madaxda Xamaas ay markaasi diideen in ay hor fariistaan Trump iyo madaxda wadamada reer galbeedka ee shirweynahan ka qayb galayo, kuwaasi oo sabab u ah xasuuqa, dulmiga, dililka iyo dambiyada dagaal ee markaasi loo geystay shacabka Falastiiniinta ah ee Gaza markaasi lagu gumaaday 2 sano oo aynu soo dhaafnay. Dhanka kale, kumanaan shacab ah ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha isbitaalka An-Nasr ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ee Falastiin, waxaana halkaasi ay ku qaabileen boqolaal Falastiiniin ah oo markaasi saarnaa basas, islamarkaana laga soo sii daayay xabsiyada gumaystaha Israa'iil. Shacabkan ayaa waxa ay isugu jireen qoysaska, ehelka, qaraabada iyo saaxiibada shacabkan Falastiiniinta ah ee maanta xornimadoodu helay kadib markii lagu bedeshay 20kii Israa'iiliinta ahaa ee markaasi noolaa ee Xamaas iyo geesiyaasha Falastiiniinta ee Gaza ka dagaalamayo ay markaasi soo wareejiyeen. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ee Falastiin ayaa goor sii horeysay markaasi sheegtay in shacab tiro badan oo Falastiiniin ah in maanta basas ay markaasi ku yimaadeen, islamarkaana baaritaano caafimaad iyo gurmad caafimaad oo degdeg ah in markaasi loo sameeyey, maadaama qaar badan oo ka mid ah xaaladooda caafimaad ay markaasi liidatay. Saraakiisha caafimaadka ayaa markaasi sheegay in ay jiraan qaar badan oo ka mid ah shacabkan Falastiiniinta ee laga soo saaray xabsiyada gumaystaha Israa'iil oo markaasi la jirdilay, la waxyeeleeyay, islamarkaana la gaajaysiiyey, iyo qaar kale oo xitaa ay sheegeen in xanuuno dhanka maqaarka ah ay markaasi la tacaalayeen. Yuhuuddana ay si xun markaasi oo la macaamileen intii ay ku hayeen xabsiyada ay ku leeyihiin gumaystaha, xabsiyada ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee Falastiin. Waxaa maanta markaasi lasoo sii daayay in ka badan 1700 oo qof oo Falastiiniin ah oo markaasi saarnaa 38 basas, islamarkaana laga soo qaaday intooda badan xabsi gumaystaha Yuhuudda ay ku leeyihiin saxaraha Naqab ee dhulka koonfureed ee la haysta ee Falastiin. Shacabkii halkaasi ku sugnaa ayaa mid markaasi u qaabilay Falastiiniintii saarnayd basaskan ee maanta xornimadooda helay, islamarkaana laga soo saaray xabsiyada gumaystaha Israa'iil. Qoysas badan ayaa halkaasi ku marxabeeyay eheladooda iyo qaraabadooda, waxaana halkaasi isku salaamay hooyo iyo wiilkeeda, aabba iyo wiilkiisa, iyo sidoo kale aabba iyo caruurtiisa. Warbaahinta Al Jazeera ayaa si rasmi ah markaasi looga tabiyey in sidoo kale weli ay jiraan qaar badan oo ka mid ah shacabka Falastiiniinta oo markaasi maqan oo aanan meelna lagu sheegi karin, kuwaasi oo la tuhmayo in weli gumaystaha Yuhuudda ay ku hayaan xabsiyadooda, islamarkaana ay ku dhibaateynayaan. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda marinka Gaza ee Falastiin ayaa si rasmi ah markaasi u xaqiijisay in ka badan 9,000 oo qof oo Falastiiniin ah in ay maqan yihiin, kuwaasi oo badankooda ku hoos jira burburka dhismayaasha, waxaana jira qaar kale oo gumaystaha Yuhuudda ay ku hayaan xabsiyadooda, islamarkaana ay ku dhibaateynayaan. Dhanka kale, 154 qof oo Falastiiniin ah oo qayb ka ah heshiiska xabad joojinta iyo midka maxaabiis beddelashada ee marinka Gaza ee Falastiin ayaa maanta loo tarxiilay waddankaasi Masar kadib markii laga soo saaray xabsiyada gumaystaha Israa'iil. Shacabkan Falastiiniinta ah ayaa markaasi la saaray sida wararku ay tibaaxayaan diyaarado, waxaana laga dejiyey jamhuuriyadda carabta ee Masar xilli gumaystaha Yuhuudda ay markaasi diideen, islamarkaana ay go'aamiyeen in aysan kusii noolaan dhulka la haysta ee Falastiin. Tani ayaa sidoo kale kusoo aadaysa xilli 20 Israa'iiliin ah oo nool oo lagu hayay marinka Gaza ee Falastiin maanta lasoo sii daayay,
islamarkaana ay heleen xorriyadooda. Waataa intaasi ayaa noogu gudbayaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe oo aad ka daawanayseen islamarkaana aad kala socoteen kanaalkeena. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad nagu soo biirayso, ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aad u xiiso badan aad dalkan uga bogatid. Tan ismaqalkeena xigana waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo aad u xiiso badan.